بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. ugu horeysa waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka meel kasta oo aad adduunka ka joogtaanba. Marka xigta waxaan jeclaystay maanta inaan halkan kaga hadlo amaba aynu kaga hadallo mowduuc runtii hadalkiisu uu inagu badan yahay, wax ka qabadkiisuna uu inagu yar yahay, oo ah qabyaaladda. Qabyaaladdu waa cudur ka mid a cudurrada bulshadeenna haysta. Cudurkaasoo bulshada dhan ku dhex jira. Dhowr cudur baa jira oo waaweyn oo runtii Soomaalidu haddii aanay iska daweynin laga yaabo inuu galaafto jiritaankooda. Horena wuu u soo galaaftay, inta dambena inuu iskaba raaciyo ayay u badan tahay. Cudurradaasi waxay kala yihiin qabyaaladda, musuqmaasuqa amaba hunguri xumada, iimaan la'aanna waa la yidhaahdaa, hunguri weynina waa la yidhaahdaa, kay doontaba ha noqoto. Iyo ka saddexaad oo ah balwadda qaadka oo runtii aad iyo aad halis ugu haysa jiritaanka ummaddeena. Laakiin maanta waxaan doonayaa inaan qabyaaladda waxoogay ka hadlo. Qabyaaladda intii ay Soomaalidu soo ilbaxday, ay magaalooyinka soo gashay, ay dowladaha iyo ururada samaysatayba waa ay ka hadlaysay oo way ka cabanaysay. Dugsi male qabyaaladii, wax ay dumiso mooyaane ayaa ka mid ahaa weerarihii caanka baxay ee Soomaalida dhexdeeda. Marar fara badan ayaa la isku dayay in la mamnuuco, marar fara badan ayaa la damcay in laga dhiga cambaar qofkii lagu arko maaragtay la shaambadeeyo, laakiinse mar walba way sii tarmaysay oo way sii badanaysay. Aniga iyo dadka da'dayda ah waxaana lagu soo barbaariyey, iyo dadka da'dayda qaar badan oo ka mid a dabcan, inaanu qabyaaladda beri ka noqonno oo aanu ka gaalowno oo aanu markaa maaragtay meel fog iska taagno. Laakiin markii lasoo weynaaday ee aanu soo mudakarnay, waxaa aniga shakhsiyan ii caddaatay inay adag tahay in laga gaaloobo. Maaha hadda inay tahayba inaad marka ummadaada dhan inaad ka dhex baxdo ayuunbaad qabyaalad kaga dhex bixi kartaa. Waayo qabyaaladdu waa wax ummadda ku dhex jira oo ku dhex abuuran. Marka waxaan idinla wadaagayaa bal dood aniga iyo qabyaaladana dhex martay waqtiyada ka mid a. Markii hore sida Soomaalidu uga hadasho ayuun baan uga hadli jiray. Gabay baa jira sanadkii 2000 aan tiriyey oon dhibaatada Soomaalida kaga sheekeeyey iyo mashaakilkii masaa'ibtii soo martay, aniga oo masaa'ibtaas Soomaalida ku dhacday u aaneeyey inay qabyaaladda ahayd. Mowqifka aan ka taagnahayna caddeeyey. Waxaa ku jiray markaa maansadaas dheer, qaybta qabyaaladda ka hadlaysaa waxay odhanaysay: waxba yaan alhuumada xil kale aad u faaqidine, waxba yaan ayaamaha silloon eelkiisii qodine, waxba yaan itaal xumo darteed oohin doorbidine. Asalkii musiibada in aan eegaba mudane, abasada rugteedii in aan aado way tahaye, in aan ereyo waana ah idhaaway ekoon tahaye, aqoonsiga xaggayga ah in aan oogta ka caddeeyo, ood wada ogaataan malaha ii gar way tahay. Eedowda Soomaaliyey aragtidaydiiye, abtirsiinyo weeyaan waxaa ooda kuu rogaye, Afrika iyo Eeshiya waxaa dunida uun buuxshay, waxaa aabbahood loogu wacay waa aqoonsiga ah. Marka aad isaaq sheegatiyo udubka daarooda, ama aad hawiye aada iyo erer ku faanayso, aniguna islaam baan ab iyo ehelba sheegtahay. Ilmaadeeraday waa intaan eebba caasiyine, Ibraahiin khaliilkii allaan agabsan doonaaye, ruuxii qabiilka arrinshay qaranka aafeeya, ololaha nacaybka ah ninkii aaranka u fuula,
aakhira halays buu tabcaday dunina eedoy macnaha maasadaasi runtii waa mowqif waagaa horena aan qabay imikana aan qabo laakiinse waxay wax u cabiraysaa sidii ay soomaalidu wax u cabiri jirtay oo inay qabyaalada ka cabato waan qabaa qabyaaladu inay tahay waxa ummadda baabi'iyey waxa baabiin doona imikana sii baabiinaya ciddii qabyaalada si uun uga qayb qaadata ee ololaheeda nacaybka iyo duminta ah qayb ka noqdaana qofkaasi inuu ummaddii aakhirana inuu aakhira halays tabcaday adduunkiina inuu khasaare tabcaday saas baan aaminsanahay waa hadda waa 23 jir maansadaasi waxaa nasiib darro weynaa in maanta carruurtii dhalatay waaga aan gabayadaas ama maansada aan tirinayay markaan halkan social media ku kulanno ama meelaha kale ee magaalada aan ku kulanno aad arkayso iyaga oo u xamaasadaysan qabyaalad oo u ololeynaya haddaad doonto adiga kugu eedeynaya inaad marka qabyaalada maaragtay maadaama reer hebel ka dhalatay ay qabyaalad ahaan kuu soo ataagayaan mararka qaarkood arrintaas marka aad eegto runtii waxaan eedda saaraa cidda aan eedda saaray ugu weyni waa cidda aniga iyo dadka ila midka ah ee xambaarsanaa fikirka ah in qabyaalada laga gaaloobo dadka doonaya inay hanuuniyaan ayaa waxay si tootala ama si buuxda ugu fashilmeen mawduuca inay fariintaa dadka si fiican u gaadhsiiyaan dabcan kuwii facii naga horreeyeyna way ku fashilmeen faca dambe muujiya inay ummadda ka badbaadin doonaan alaabtan habase ahaatee waxa aan ku dhex jirkii ummadda soomaaliyeed aan ku dhex jiray muddada ay i tustay in kor hadday ummaddu wada bugto aanay suurtagal ahayn inaad keligaa caafimaad qabto suurtagal maaha keligaa inaad ka dhex baxdo qabiilkii waayo ummaddaadii waad u baahan tahay haddaad qabiilkaad faamilkaaga iyo intaad isku qabiilka ahaydeen ka dhex tagto in kala dhex tagto yacni halkaa qudheeda yacni qabyaaladdu way kaaga horreysaa waxaa laga yaabaa in lagu yidhahdo maxaa na kaa dhex keenay adiga xageed adigu ka timi oo kale lagu yidhaahdo marka sanadkii 2003 markay taariikhdu ahayd oo hadda 20 sano laga joogo ayaan fadhiistay dabadeedna waxa aan la garramay qabyaaladda oo runtii meel kasta igaga hadhi weyday haddaad masaajid gasho iyo haddaad urur gasho iyo haddaad maxaan ku idhahdaa yacni meel kasta oo aad istaagto si kasta haddaad istiraahdo isaga beriyeel kaa daba hadhi mayso iskaba daayay marar fara badan iyadaa waxay ku noqonaysaa garab iyo gaashaan marka qabyaaladii baan la fadhiistay waa 19 bishii labaad ee 2003 dabeedna waxaan sameeyey maase la yidhaahdo bal maxaa i kaa daba dhigay markaa bal dhegeysta hadda dacwad shalay naftaydiyo qabiil golanna loo dayray diihaal colaad iyo guhaadoodna kala gaadhay darandoorigii hadalladee layska daba qaatay dadoo waxaan idiin sheegayaa dalabdhaceedii bal daliilka fura kaayagii dawga laga yeeshay qabyaaladii dacwaysane anoo dood u celinaya waxaan idhi ilaahay dartii waan ku diidanaye diirkiyo waxaan kaa necbahay duubka oogade damiirkaygu kuma qaadi karo reera dumiyaaye adna sidaa dirayskaygii taad ii dul socotaay bal maxaa i kaa daba dhigeed iiga degi weyde daldaloolabadane adoon dhaxan daboolaynin dugsi iyo gabaad baan haddana kaa dayaa abid anigoo ku og ayaan haddana dugsi kaa soo doonta adiga dagaalkaaga kama soo hadhgalo diif kastoon qabe waan intan ku caayaya eele dugsi male qabyaalad waxay dumise mooyaane dugsi iyo gabaad baan haddana kaa dayaa abid dagaalkaaga kama soo hadhgalo diif kastoon qabe dabka iyo rasaastana anaa kuugu deeq badan
haddana anigun baa ku hubeeyey oo ku taageero ku xoojiya. waan kaa ducaystaa sidii duuma waa cudure, dakharkii i gaadhana adaa daawo ii qore markaan kaa durkaabaad halkaan dega timaadaaye, bal maxaa ikaa daba dhigay iga degi weyde. aniga iyo qabyaalad su'aalahaas muhiimka abaan weydiiyey. waa hubaal inaad adiguna aad weydiisay dabcan. marka waa tan iyadana jawaabteeda. waxay tidhi adaan daaciyo u duucna garanayne, dantaadiyo adaan kala aqoon meesha kuu darane, da'da sabankan joogtaa tahee layska duubsaday, dib u fiirso waxa aan abaal duuga kugu leeyahay. haye danyar adiga oo caydh ahaa duunya ka idlaatay, darxumooyin baad mudan lahayd dagaha jiilaale, sawtaan dawaray een xigtada daasad kula meeray, een kadin dareeraye iyo xerada kuu dayri, ma wax laga dudaanahay adaan dawga garanayn. waa markaad caydhood see duruufuhu ku haleeleen, ama geeri kugu timi ama guur kugu yimi ama duruuf ama xanuun kugu yimi, sow aniga mu ahayn ciddii ku halgantay ee kuu dagaalantay, ma cid kalaa kuu halgantay. dug markay ku siiyeen dharaar godob dar kuu haystay, dildalaadda waataan adoo diifla kaa furaye, dilkaagii ma baaqdeen haddaan dunyo loo hurin, ama aan dabsaar iyo karkaba loo diyaar noqone, ma wax laga dudaanahay adaan dawga garanay. arrin kale oo cajiibaa timo kiisas baa laguu qabsaday, waa lagu afduubtay, in lagu maxkamadeeyaa la doonay ama lagu dilo, laakiin waa naga xooga kaaga soo furanay ama lacag kaaga soo furanay, ma cid kalaa ku badbaadin lahayd. su-aashaasna waa su-aal kaloo muhiima oo arrinta qabyaaladii ku garnaqsanayso. mid kale, duulaanka reer qudhac markuu idin daqiiqeeyey, idinkoon dareen qabin sidii daad idiin kiciye, dabra weerarkii idinku dhacay doogsin ma ahayne, dulli sawtan kaa baajiyeen daafac galay maaha, ma wax laga dudaanahay adaan dawga garanay. reer hebel idin soo weerareen, wallaahi markii aan idhi ma cid kalea ku daafacday, soo anigu kumaan daaficin haddaan qabyaalad ah. darajiye xilqaybsiga markay dowladnimo joogto, inaan laga dulmarin reer kasta adduunka soo geliye, aniguna dadaalkii markaan damaca weyneeyey, dayaciyo danseeg waa anigii duub u soo xidhay, farxadoobintii bay rag kale cadho dilaaceene, ma wax laga dudaanahay adaan dawga garanayn. waxagii siyaasaddiina kii ugu nacasaysnaa reerku lahaa markan darajo siiyey, magaca qabiilka meel ku saaray, kursi ku saaray, miyaanad arkahaynin. ku darso intaan diray aftahan hadalka loo daayey, inta nin ee la diray gabyaya ee wax tirinaya hadda ee qabiilka difaacaya, qabyaaladaa soo dirtay. ku darso intaan diray aftahan hadalka loo daayey, dareen jiifa way kicin ogyihin duulka maansaduye, darajeeye reer hebel intaan kula dardaarmayey, intaan cadowga duudsiiyey, intaan gacal daryeelayay, dooyada waxaan ugu ahaa yaani daadegin, waxaan sahan dadka reerka ugu ahaa reerku yaan hoosu dhaadhicin, ma wax laga dudaanahay adaan dawga garanayn. sidaasay qabyaaladii isku difaacday oo ay ku dooday. waxaan idhi halkii aan degiye meeshaad iga doontay, alla ilaha intay kala durkeen waaba kala daan, dantaad sheegaysaa waa wixii kaday dadkaygii, ee ay la wada diidsan yihiin dakharadeedii, inta dumar goblamay een mar kale dihanahayn wiilal, intay duubiyadu naafayiin degelka soomaali, inta debadda sii aaday ee dhaqankii doorsoomay, inta aan dib loo arag dhan ay dunida joogaanba, inta weli dabkii haysatee weerar daba taagan, iyo deriska kala yaacay een dib isu raadcayn, dambarkiisa weeyaan qabiil darartii koowaade, jidhku way damqanayaa markaan buugga kuu daya doqon iyo nin liitad mar kale dabin u qooshaaye, mari daga ilaahay hadago kaa digniin helay qabyaaladii. waxay tidhi markaa dabcan waa dagaal bay hadda noqotay oo kiiskii baan iska waalay, kala tagnay baan ku iri, dabeedna way soo noqotay. waxay tidhi dayaysani haddaad sideetan door mooday inaad qabyaaladii ka tagto, haddaad door mooday, dardartaada ii muuqataa daaritaan ma leh, inaad dayra reeraha ka noqon geli dareenka. horta reerkeenu wuu ku dayrinayaayo ogsoonow.
wax qabyaalad lagu doorsan karo la ima daalicine dadka kalena way kaa irdhoon sida dugaagii inay dani ku soo celin mar kale geli dareenka markaad adigu aad iga tagto reerihii kale soomaaliduna way kusoo dayrin doonaan oo yaad ahayd bay ku odhanayaan horta maad adigu talba lahayn waxaan idhi dardaar warintu waa kuu daciifnime nin dagaal u soo baxay magayo waan ku dilayahay kuwa diinta kaa yeeshabay taasi didin layde istiyaari maalmaa ka hadhay dabar go'aagii waxay tidhi sidaad damacsan tahay dani hadday yeesho dariiqii abkaa iyo haddaad duugto dhaqankaaga waxa iga dardaaranaa hal aan kaaba degahaynin dadku wadadad wata markaa waxay damacday inaan kol haddaan anigu meeshii ka tegey oon dhaqan dooris noqday inay bal ila sii dardaaranto aan wax la kala hadho waxay tidhi dadku wadadad weeyaan haddana kala dun roonroone ummaddan aad arkaysa qabaaishu gun iyo gob baa jirta oo laandheeriya laangaab baa jira waa kala noocnooc marka dadku wadadad weeyaan haddana kala dun roonroon darajay ku kala soocan yihiin dabaqad reeruwe sida aan dameer iyo fardo iyo awr u wada daaqin ama aan digaag iyo shimbiro heer u wada duulin ayay tahay darxumo weyn haddii laysku keen dare dadka haddaad isdhex geliso waa darxumaa meesha ka imanaysa digniintaydu waa inaad markaa dib u xasuusnaato dalkana waa la kala leeyihiyo doogga soo baxaye sida dulinka xoolaha cid yaan lagu dul noolaanin ninba daayinkii meeshu dhigay doora ku ahaado falsafadda qabiilkuna waa noocaas weye asalka waxay ku dhisan tahay inay gob iyo gundid ku kala yahay laandheere iyo laangaab inuu kala yahay sidoo kale dhulka in la kala leeyahay oo aan markaa maaragtay laysku soo durkin waa falsafadda qabiilka taasoo inagu aanaan aaminsanayn ma aaminsanin dadku inay gun iyo gob kala yihiin mana aaminsanin laandheere iyo laangaab inay kala yihiin mana aaminsanin dhulka ilahay in la kala leeyahay sidii inta ay diinta islaamka ka ogolaatay kala lahaanshaha ayuunbaan ogolahay oo gabigu sheegi doono waxaan idhi sirtaan doonayaa dooxday adigii dembigaagii wuu ii cadiyo malaha doondoone dawadiina waa loo hayaa doogta bi'in layda dar ilaahay dumidaada waa loo dabaaldegiyey dadkaad kala sarraysiinaysaa waa uliya diire waa duudii nebi aadan iyo qoys durriyadii yaa darajadaad sheegaysiyo dabaqyada u qaybshay sawdiirka maariin madow deeqsi kama yeelin sow diinta layskuma dhalee maxamed may dooran sow dacalka xeebteennan dheer degel kama yeelan dood kalena waxaan kaaga naqay doogga soo baxaye dalka waxa leh ruuxii degay xoola daaqsade dalka waxa leh daar iyo ninkay dalag u beermaan dalka waxa leh kii lagu dihday een dooran meel kale dalka waxa leh duulkan ku imaan dirir colaadeed dadka yaa u kala qaybiyo dacalba reersiiyey deeqdii ilaahay kumaa kaaga dhigay dowlad saastaan anigii qabyaaladii aanu ku kala tagnay oo aanu ku kala joogsanay dadku waagaa hore waxay yidhaahdeen iyadaa gartii ka heshay xamaduna iyadaa gar bay leedahay waayo waxyaalo badan oo meesha ku xusan oo caddaysay ilaa wax bedelo la helo iyadaa kaa gar helaysa waxaa ugu horeysa dadkii in mentalitigooda la saxo dadkan aaminsan gun iyo gob laandheere iyo laangaab in meesha fikradda laga saaro oo la geliyo bini aadamku inay sameyn yihiin annaasu sawaasiya ka asnaan almashd dadku inay sameyn yihiin oonay kala sarreyn qodobkaasoo kale on meesha laga saaro qodobka labaad tan qof waliba uu sheeganayo dhul iska aanu maarta waxba ku qabanahayn oo aanu daar uga dhisnayn oo aanay beeri uga qodnayn oo aan ceel uga qodnayn uu iska cidlo ah waa in dadka laga saaro oo dadkii in dhulka qofkii camira inuu dhulka leeyahay dadkii la geliyo qodobka kale muhiimkii waxa weeye isaguna aadka u muhiimka ah oo qabyaalada lagula dagaalami karaa waxa weeyaan in dadka faqriga laga saaro waa in caymis qabiilkii bedela la helo caymis qabiilkii bedela waadiga wuxuu waa caymis arrin kale oo muhiima baa jirta waxaasoo dhan kasii muhiimsan waa in cadaalad ijtimaaciya la helo waa in cadaalad la helo dadku ay aamini karaan nidaam ay aamini karaan ay ku kalsoonaan karaan haddii kale qabiilku waa cidda keliya ee wax u soo dhicinaysa ee wax u badbaadinaysa waad mahadsantihiin dhegeysta wanaagsan gabaygaas fiican u dhegeysta iyo doodaas ilaahayna hayna xoreeyo subxaana wa tacaala